بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيار تشرف للسوداء هذا وحان كجرني حسابتي فراكشن كي باربنا إنا كدرقنا مركان وإن العشر كان أتكبلو ذا إلا أتكدميست فراكشن دم مرة إن شاء الله إن أتكو عشوت وحان كبلابي دونا نيمينج فراكشنز لكن انت لنا فراكشن كبلابي من عرقنا سيدين أسعون دونا هدي لهاي هذا بعد وي حسابتان ودكتور بوتان markaad videoga dhamaysana subscribe iyo xarabta ku qoro casharadan saa ula socoto cashar walba kugu soo galo waaya casharadan xiriirka ah waxaan ka bilaabaynaa road mapkayga waa kan fraction sidaan rabnaa aan u loqno waa 7 qaybood waa maxay fraction baan ka bilaabi doonaa casharka hadda maanta ah oo fudaydka ah ka bacdina xoogaa mid ka culus fududaynta ah kadibna sida la isku wadbadalo kadibna isku dhufashada iyo qaybinta kadibna isku darkay kala goynta fraction kadibna fraction adag kadibna insha Allah word problems haye diyaar waa taa u malayna aan ka bilowno markaas cagaarkaas ku garanaynaa meesha aan joogno waxaan joognaa kan ugu horeeya casharka ugu horeeya maanta aan joogno waa ka waxaan ka bilaabaynaa what is a fraction waa maxay fraction ku waan ka bilaabaynaa waa maxay fraction fraction waa la yaqaanaa fraction waa part of a whole object waa shay qayb ka mid ah wey waa shay la jarjaranayo kala kala goosto kale wixii la qaybsado qayb ka mid ah baa la yiraahdaa so maxaa ka mid ah dollar hadaan qaybsano 3 qof 4 qof hadaa ku qaybsataan $1 ninkiiba qayb buu ka helayaa intee qaybood helaya 4 meelood oo meel buu ka helayaa marka koor buu helayaa ama rubuc saartade haday ahaan la cunno la cunayo 4 saxan oo haysto saxan weyn intii lagu soo guri lahaa nin walba saxan yar la bixilaa nin walba hal duleel buu 4 ka qaatay hal meel ayuu ka qaatay 4 qaybood warkaas waa cadi aan maleynaa ahay waxa la yiraahdaa 1/4 buu qaadanay hadii meel buu ka qaadanay aragna kuwa lamida adigaan rabnaa inaan isla aragno kuwa kale laakiin aan labadan eray barano labada eray maxay yihiin numerator iyo denominator waa very important labada eray haddaan si fiican ugu dhawaaqin waxa loo qaadanaa xisaabta inaad aqoonin kan kore the top part waxa loo yaqaanaa numerator kan hoosena waxa loo yaqaanaa denominator hay qoliyaha Mareykanka iyo tida da iska denominator way leeyihiin marka denominator that right waa very good saarabta u dheh marka numerator iyo denominator wankii wuxuu noqday numerator forkina denominator saas uu ogow asagana hadda xoogaa yar aan dhowr calaamadeyn oo isla garan casharka oo fudud iyo khafiif weeye waxaan si fudud inaad u qabsatid ka soo qaad shape-kan ama suurkan lagu soo dhigay waxa lagu yiri intee yahay wuxuu ka yahay waa garan kartaa hal meelood ayaa ka madow 6 meelood hal meelo ayaa ka madow 6 meelood 6 meelood marka 1 out of 6 way fraction kaas ha ka waran midkan kale waxa ka madow 3 meelood oo imisa madow 8 meelood way hadaa tirisid waa 8 god 8 god imisa ka madow 3 waa qayb ka mid ah saan sheegnay fraction waa 3 out of 8 or 3/8 waayahay labada xabo kala aan ku darno marmarka qaarkood waxay iska noqon kartaa letters ama waxay doonaan mu noqon karaa fractionku marka waxa lagu yiri war xarafyadan imisa p ka p-da waxa ka waa la yaqaana laba kaliya ku jirta Soomaa kulligood waa imisa waa 5 marka fractionku wuxuu noqonayaa 2 out of 5 kaalminkaas ka waran midkan dheer erigan dheer oo dhawaaqis xogaa adag yahay hippopotamus waa bahashan ku jirta wabigay marka 3 meelood imisa p baa ku jirta 1 iyo 2 iyo 3 baa ku jirta kullina tiri hadaan khaldanayn waa 12 xaraf weeye 12 kaas 3 kamid ayaa biya fraction waa 3 out of 12 ka tagno xogaa yar kana ku darno 6 bay 5 waxa soo hormaray 6 5 ka bilow kan 5 fraction of stars war imisa xidiga ka kuwan kan hore 4 xidigood baa ku jirta todobadan 3 mid gadgaduudan iyo 4 xidigood soo waxaan u qoraynaa 4 out of 7 numberka u dambeeya finally waxaan u qoraynaa imisa xidigood 2 out of 3 2/3 baa loo akhrinayaa
2/3 ama waxaa laleeyahay 2/3 iskaa tiraahid waa sax. casharkan gaaban halkaasaan ku dhammaynaynaa, laakiin ha ku sugnaa casharo badan baa soo socon ku xiga say isugu xigaan oo silsiladii ka aragtay isugu xigso saasaan isugu xijinaya insha allah. intaasaan kugu salaamayaa. waa Dr. Botan. asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu.